in habeenada ka mid ay ku yeertay marxumaddu habeenkaas meeqa saac bay ahayd qiyaastii 3 ساعة إلى 4 ساعة لكن بعد المغرب أي ساعة بعده بعد المغرب ku soo wacday laakiin 3 saac ilaa 4 saac okay Siham ma u tagtay marka marxumadda habeenka ها maxay kuu sheegtay marka u tagtay guriga ugu tagay maxay ku dhahday guriga ma ku wada hadli karno waxaa jooga Sayid Cali guriga ma ku wada hadli karno markay ku tiri meel kale aad ku wada hadasheen haday jirto maxkamadda u sheeg ها isbitaal macaani hortiisa okay maxay kuu sheegtay marka maxkamadda wax u sharaxdaa waxay kuu sheegtay markaas waxay ku dhahday waxaan rabaa inaan wax kuu sheego soo si sir ahaan iigu sheegtay marka waxay ku dhahday waxaa jira buuq haddii sayid guriga kuga arkani yacni wuxuu dhahay wax ilmaha dhankooda ka socdo ma imaan karaan soo marka inuu khilaaf dhacaa laga yaabaa sababtaasi waa sababta aad banaanka ku soo aadeen maxkamaddu u sheegtay okay ayada wax la xiriira oo maxkamaddu ay kuu sheegtay ma jirtaa waa ka baqahay igu dhahday soo wuu ii gacan qaaday sidee buu u gacan qaaday bal maxkamadda halkaa u sharax ilaa waqti dheer wada qaadateen wax war bay kuu sheegtay faahfaahintii maxkamadda wuu ii gacan qaaday igu dhahday dhowr jeerna waa iskhilaafnay ani marka waxaa ku dhahay hadduu kuu gacan qaaday aabbaha la wadaag okay habeenkaa markaad dhammaysateen warbixintii ay ku siinaysay gurigaaga miyaa aaday mise meel kale aaday maxkamadda u sheeg may gurigeeda usoo laabanay gurigiina haddaa usoo laabateen maxaa dhacay maxkamadda u sharax guriga markaa usoo laabanay waxaa dhacday yacni in igu dhahday waqti dambe waay ma baxaysid joog annagoo qolka ku wada hadlayno uu soo galay isagani yaa soo galay maxkamadda u sheeg Sayid Cali hadduu idin soo galay muxuu idinku yidhi wuu qayliyey wuu buuqay marka wuxuu dhahay ma joogaysa Siham waa inay baxdaa yaa baxaya buu yidhi Siham waa inay baxdaa guriga ma joogayso kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacday labadoodaa murmay soo waxay ku murmeen way joogaysaa iyo ma joogayso waqti dambe waay waa joogaysaa iyo ma joogayso markii lagu murmay maxaa dhacay boorso meesha taaluu soo tuuray ayada garab kaga dhacday intaa kadib maxaa dhacay soo buuqa markuu batay uu gacan qaaday boorsada soo tuuray marka ani waa baqay adeerkaya wacay wuu ii yimid kadib ani waa iska soo baxay ayada ma ku soo raacday marka mise waa kaa hartay ma ii soo raacin guriga ku hartay okay habka gacan qaadka habka ficilkaasi u dhacay gacan qaadka ah sida uu u dhacay macnaa waa la dareemi karaa dagaalku xadka uu gaarsiisan yahay nooca dawtirnimada miyaa ka muuqatay ma wuxuu maxkamadda waxa u sharaxdaa dagaalkaas iyo murankaa dhex maray allahu naxariistay luul iyo sayid cali kadibna gacanka hadalka isu bedelay kadibna adigu aad guriga habeenka kaga tagtay maxkamadda hal mar ugu celi aad u caraysnaa soo markii boorsadu soo tuuray ani marka waa baqay waxaa ku dhahay waa baxaya ayada marka way la murantay ayagaa is hadal qaaday marka isaga zaa'id u caraysnaa si qof ay labadooda dagaal hore ka dhaxeeya cam sayid cali markuu imanayay ma qol buu ka soo baxay ma banaanku ka yimi ma arkaysay meeshuu ka yimi maxkamadda u sharax qolkiisu ka soo baxay okay waa mahadsan tahay intaasaan kusoo koobaya Siham waxaa su-aalo ku weydiinaya qareenka difaaca eedeysanaha marka su-aalo gudban xagga ujeeso Siham waxaad sheegtay in lagu yiri guriga kuma sheegi kari arrin baan rabaa inaan kula wadaago soo maaha
guriga markaasi caruurta ayaa ku sugneed soo maaha ها waxaad sheegtay Siid Cali inuu gadaal ka yimid sax ها guriga inay kuugu sheegi weyso adiga iyo ayada mar haddaad tihiin inay dhibaato haysato maxaad u malayn kartaa سؤال توس ويدي محاول أوكي. لك كرتاب سؤال soo guriga kuguma sheegi karin hadalka ay bannaanka kuugu sheegtay مي because أسا كجري قرية asaga ayaa ku jiray guriga miya ها قول كيسو كجري hadda ka hor guriga ma seexatay يا hadda ka hor guriga ma seexatay ها wax sariira ama qol ah oo adiga kuu diyaarsanaay markaad imaatid in aad seexatid ma jirin soo ma ah bacdamaa guriga uu yahay guri family oo caruur oday iyo xaaskiisa ay wada degan yihiin haddana maxkamadda horteeda aad ka sheegtay in aad guriga seexan jirtay ma jirin qol iyo sariir adiga kuu gaar ah ee aad seexan jirtay soo ma ah قرية سيدي اللي موسى حنجر انت هذا كلاني إنما يددو ذا هاي إنما عاود su-aashayda waxaa waaye meel ما جرين كنا مكاتب ya ما جرين قل إيدي يارسنو ماشي عن سيحلو maxkamadda la wadaag meesha aad guriga ka seexan jirtay gabadha eedadu aha qolkeeda seexan ya gabadha eedadu aha qolkeeda seexan jiray qolka gabadha eedada ah u tahay waxaa yaalay sida ay sheegtay sariir armaajo miis iyo kursi soo maaha ya ها marka sariir gaara adiga aad seexanaysay ma jirin sax sariirta gabadha ku seexday ayadana dhulkii seexatay teeda kale hal habeenoo kaliya seexdeen adiga sariirtaad ku seexanaysay gabadhana dhulkay seexatay markii ay ku tiri khataraan ku suganahay ama khatar ayaan Siid Cali aan ka baqaa markii ay ku tiri cid aan la wadaagtay arrintaas ayada ah ma jirin soo ma ah may sheegista adiga ay kuu sheegtay ma waxay ahayd in Siid Cali aad la hadashid may mar haddii aadan la wadaagin cidna hay-adihii amnigana aadan la wadaagin inay khatari ku sugan tahay Siid Calina aadan u sheegin muxuu ahaa micnaha adiga lagugu sheegi kara ee aad wax kaga bedeli kartid dhibka jiro waxba kama bedeli karayn laakiin ani ayada way ii dhaweyd oo way ii sheegtay kaliya inay waxaas jiraan meeqa saacaad bannaanka joogteen intaa wada hadlaynay 3 saac iyo bar ilaa ay 4 saac camal ay ahayd 3 saac iyo bar ilaa 4 saac nus saac nus saac waxay kuu sheegaysay inay khatar ku sugan tahay soo maaha haa banaanka ku wada hadlay markii Siid Cali sida aad sheegtay ee aad tiri guriga uu soo galay waa uu yimid markaas asaga ah maxaa keenay Siid Cali inuu adiga ku dhaho waa inay baxdaa wax guriga ilmaha ka socda ma arki karo yiri adiga iyo Siid Cali wax xurgufa ma idinka dhaxaysay may caruurta haweenkaas gurigay ku sugnaayeen soo ma ah haa maalintaa jimcada ah oo habeenkaas adiga aad la kulmaysid ma habeen jimco soo galaya mise waa habeen sabti soo galaya habeen sabti soo galay Okay.
maalintaa ayada ah oo jimcaha ah adiga xaggee ku sugnayd gurigeen ma kuu sheegtay meesha ayada ay jirtay maalintaas may ma maqashay in maalintaas Siid Cali iyo xaaskiisa ay ku sugnaayeen guriga sodogiisa haa taas waa maqlay ma jirtaa wax nabar ah ama korkeeda wax ku yaallo ay ku tustay may cid kale ay la wadaagtay dhibka adiga ay kuu sheegtay ma jirin soo maaha ma ogi taas kuma ayan sheegin waxaan arrintan u sheegay qof kale kuma ayan dhihin soo maaha may kuma ayan dhihin arrinta sababtay in dhibka uu ka dhaco guriga jimcaha ku xigto waxaad u aragtay in ay arrintaas tahay soo maaha arrinta sababtay dhibta ilaan markhaatiyaa tahay maxkamadda waxaa la tilmaamay in guri uu gubtay arrinta sababtay in uu gurigaa gubto waa inta aad sheegaysid oo ahayd in khatar uu yahay abukaati su-aashaas guriga inuu gubto ka marakaci maysa gabadha waxay ka marakacaysaa dhacdadii loo sheegay ee ay u sheegtay gabadha sida xeerlaaliyu ku dooday marka waxaad wax ka weydiisaa wixii ay la kulantay markii gabadha ay u timiday ilaa guriga intay ku sugnaayeen weydii jimcihii ku xigay adiga guriga ma aadan imaan soo ma ah may ma joogin xilliga dabka uu dhacayay soo ma ah may ma joogin xilliga buuqa uu jiray soo ma ah buuq wax taleefana ay kula hadashay oo ay ku soo wacday ma jirin soo ma ah habeenkii bacdilmaqribka isla dhibka markuu dhacayay wax taleefana ay kuu soo dirtay oo ay kula wadaagtay ma jirin soo ma ah may wax dhiba maysan ii sheegin laakiin caadi ah iskula hadal habeenkaas caadi ah iskula hadasheen waxaad u aragtay marka in wax problema uusan jirin habeenkaas soo ma ah haa waa mahadsantahay waa mahadsan tahay waxaan rabaa hal su-aala inaan ku weydiiyo oo ah adiga waxaa markhaati ka tahay khilaaf ka horreeyey dhacdada dhacday soo maha haa waxa dhacdada dhacday oo walaasheen allahu naxariisto luul ay ku dhimatay wax aad ka og tahay ma jiro soo maha may waa mahadsan tahay hoolka dhowr jeeran aan u sheegay cid hadli karta ma jirto ciddii hadasho hoolka maxkamaddu way ka saaraysaa kuma jiraayo marka ku talagal marka hadlayso inaad bannaanka aadi doonto hay xalaale su-aashaas ha noqoto su-aal furfurida oo qaryaanka uu weydiiyey waxay daba socotaa su-aasha uu weydiiyey qareenka u dameeyey waxa uu sheegay waxa maxkamadda horteeda u timi oo keliya khilaaf sow maaha haabay ku jawaabtay wax ay kuu sheegtay khilaaf keliya miyaa mise waa laba dhacdo oo aad ka markaanti kacday midna guriga ay ka dhacday midna ay bannaanka ugu sheegtay ananba hadlinayso gudoomiye si kala weydiinay su-aashaadu afgelis waaye bukate xeer laaliye afgeliska dhaaf gudoomiye waa mahadsantahay uu weydiiyey ee ah waxa aad ka marag furayso khilaaf ka horreeya dhacdadii soo maaha intaas haddaad si kale u weydiino furfurayso adiga waa laakiin afgeliska dhaaf waaye maxkamaddu waa mahadsan sihaam waxaa qareenka ugu jawaabtay inaad ka marakacayso oo keliya khilaaf wax kale ma jiraan oo aad maxkamadda u sheegtay hadda
ani markii banaanka igula hadashay iyo markaa guriga usoo laabanay wax ka baxsan ma jiraan guriga markaa kusoo laabateen maxaa ka dhacay guriga gacan qaada ka dhacay muran kadib gabadhu waa maasanta ay of saanta